kulanti wacan wanaagsan daawada soo dhawow Shariif Sheekh Axmed ayaa galabta Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho waxa uu kulan kula qaatay qaar kamid ah shacabkii laga barakiciyay dhulalka danta guud ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka xilli uu ballanqaad xoogan u sameeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu mar kale weerar afka ku qaaday Xasan Sheekh Maxamuud oo ku eedeeyay inuu isagu dadka ka barakicinayo magaalada Muqdisho xilli uu sheegay isaga inuu ergey u magacaabay kaas oo u gurmanaya dadka dhibaataysan balse arrin la yaab leh oo soo bandhigay uu yiri ismaan lahayn dad oo Xasan Sheekh Maxamuud barakici ayaad u gurmanaysaa dowladda federaalka Soomaaliya diyaarada casri ah ayay galabta magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay kuwaasi oo hawada Soomaaliya lagu arkay miyay diyaaradaha dowladda dhexe ee federaalka ku iibisay dhulalkan danta guud xilli wasiir al-Cadaala arrintan dhowr jeer uu ku celceliyay qodobadaasi ayaan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal muuqaalka share gareeya laagta iyo shareta iyo commentiga iyo subscribe-kana hanala dhaafina saaxiibayaal waad mahadsantihiin aynu ku bilownay Shariif Sheekh Axmed oo galabta shir jaraa'id ku qabtay Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho shirkan oo ay qayb ka ahaayeen qaar kamid ah xubnaha samata bixinta ayaa waxa ay kula kulmeen xubno ka socday dadkii laga barakiciyay dhulalka danta guud ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa dadkan waxa ay la wadaageen culeysyada haysta iyo barakaca loo geystay qaar kamid ah dhulalka danta guud waxa ay noo faahfaahiyeen dhibaatooyinkii ay kala kulmeen muddadii ay socdeen barakaca iyo xadgudubyada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sameysay dadkan oo mid u dhageystay Shariifka ayaa waxa ay u sheegeen markii dhulka laga barakicinayay in qaarkood jirdil loo geystay dhibaatooyin waaweyn iyo xasuuqba loogu geystay goobahaasi qaarkoodna hanti badan ay kaga burburtay goobaha laga barakiciyay Shariif Sheekh Axmed oo dhankiisa dadkan dhageystay ayaa waxa uu yiri waad ku mahadsantihiin in aad soo bandhigtaan dhibaatooyinka idinku gaaray halkan waa wax laga xumaado in sidaasi ay idin dhibaateeyaan qolooyin canaasir ah ku xadgudbay dastuurka iyo sharciga lagama yeelayo dowladda federaalka Soomaaliya inay xasuuqdo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa laga barakiciyay goobaha danta guud ayuu yiri qof kasta oo deganaa dhul dan guud oo Soomaali ah isaga ayaa xaq u leh mooyaane ma ahan dowladda federaalka Soomaaliya inay ka qaado qof Soomaali ah ganacsato Soomaaliyeedna ay ka xaraashto dhulalka iyadoo hab sharci ah aanan u marin arrintan waa sida uu sheegay Sheekh Shariif Sheekh Axmed Shariifka ayaa waxa uu u sameeyay ballanqaadyo waxa uu sheegay in tallaabo ay qaadi doonaan wuxuu yiri kulankan waa kulankii koowaad oo aan isku aragno waad ku mahadsantihiin baahiyadiina sida aad noogu soo gudbiseen ma yeelayno in lagu xadgudbo muwaadinka Soomaaliyeed waxa uu xaq iyo xuquuq u leeyahay inuu dhulkan ku noolaado waxa uu isbarbardhig ku sameeyay dowladii hore qolooyinkii hore waxa ay ilaaliyeen buu yiri dhulka danta guud oo iyagu maysan iibinin dhulkaasi balse qolooyinkan waxay xaraasheen guud ahaanba dhulka danta guud ee Soomaalidu ka dhaxeeyay muwaadin Soomaaliyeed dhul laga qaxiyay ma ahan in dad ganacsato Soomaaliyeed ah lagu naasnuujiyo loo sharciyeeyo dhaqaale badanna ay ku bixiyaan kuwa dhaqaalaha bixiyayna dhaqaalahoodu waxa ay ku bixiyeen buu yiri meel banaana Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu dambeyn dadkan waxa uu ballanqaad ugu sameeyay in tallaabooyin ay qaadi doonaan toddobaadyada soo socda warmurtiyeedyana ay soo saari doonaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isaguna weerar afka ku qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu yiri Xasan Sheekh Maxamuud markii la doortay anigu waxa uu ii magacaabay ergeyga gaarka ah ee arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan dhinaca Soomaaliya si aan ugu qidmeeyo dadka iyo dalka Soomaaliyeed ee dhibaatada kala duwan wajahaya ismaan lahayn buu yiri dad uu soo barakiciyay Xasan Sheekh Maxamuud ayaad u gurmanaysaa balse maanta waa ay dhacday waana nasiib darro aad u weyn madaxweynaha in tallaabooyinka noocan uu qaado dadkiina aan hortaaganahay waa dadkii ugu badnaa ee laga barakiciyay dhulalka danta guud laguna xadgudbay lana dhibaateeyay iyaga oo dhibaataysan guryo aanan lahayn xilligan aanoo ergeygii gaarka ahaa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabay ah in aan hortaagnaado dad uu isla asigii barakiciyay ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
oo ninkan si cad u weeraray. cabdiraxmaan waxa uu yidhi tallaabooyinka aynu qaadi doonno waa kuwo muhiima isla markaana caawinaya dalka iyo dadka Soomaaliyeed. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kulanka galabta ka dhacay Jasiira ayuu ka qayb galay, halkaas ayuuna warbaahinta kula wadaagay isagoona u sheegay dadka baahiyaha asaasiga ah. waxa uuna ku celceliyay waxaa naxdin iyo amakaag iyo murugo igu ah in aan maanta hortaaganahay dad aad u fara badan, kuwaasi uu barakiciyay ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga ii magacaabay ergeyga gaarka ah ee ugu qudmeynta dadka iyo dalka Soomaaliyeed ayuu ku celceliyay. tani ayaana ah mid nasiib darro ah ayuu hadalkiisa raaciyay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. ugu dambeyn, dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay maanta hawada Soomaaliya ku soo bandhigtay diyaarado casri ah kuwaasi oo hawada dalka Soomaaliya hayhaabayay isla markaana lagu arkay ilaa iyo gobolka Gado ee Soomaaliya. diyaaradahan oo nuucyo kala duwan leh ayaa waxa dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in laga soo iibiyay wadanka Turkiga. miyay hadalkan uu rumoobi karaa cabdiraxmaan al-Cadaala oo ah wasiirka ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska? dhowr jeer oo wareysi lala yeeshay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay arrimaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan iibinta dhulalka danta guud ee dalka xilligan ka socda. waxa uuna sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dhaqaalahaasi ku iibinayso hanti kala duwan oo ah hantida guud, gaar ahaan diyaaradaha dagaal, gawaarida militariga noocyadooda kala duwan, kuwa gaashaaman iyo sidoo kale qalab ilaaliya hawada. xilli qalalaasahan iyo mudaharaadyo iyo dhibaatooyin waaweyn ay ka jiraan Muqdisho ayaa la soo bandhigay dhowr diyaaradood oo ah kuwa nooca qumaatiga u kaca, kuwaasi oo hayhaabayay hawada dalka Soomaaliya isla markaana tagay ilaa iyo gobolka Gado. haddaba miyay run tahay in cabdiraxmaan al-Cadaala hadalkan uu sheegay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qarash gareynayso dhaqaalaha danta guud ee lagu gaday dhulka danta guud ee Soomaaliya xilligan laga iibinayo in diyaaradahan iyo hubka casriga ah dowladda federaalka Soomaaliya ay ku soo iibisay, mise dowladaha kale ee caalamka ee garab taagan sida Masar iyo Turkiga ayaa soo gaarsiiyay diyaaradahan? horey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu horey u sheegay in dhaqaalahaas lacagaha badan ah ee lagu iibiyay dhulalka danta guud, gaar ahaan wasaaradaha, goobaha hadda dowladda ay ku duushay, suuq Siinay iyo sidoo kale goobo kaleba lagu soo iibiyay diyaarado, hub casri ah, taangiyo dagaal iyo sidoo kale waxyaabo dowladda ay u baahan tahay oo ugu horeeyo qalabka lagu ilaaliyo hawada. waad ku mahadsantihiin daawashada wararkeena iyo sidoo kale qodobada aan ka soo hadalnay. saaxiibayaal, qaybaha subscribe-ta iyo like noo saara, share gareeya, gaarsiiyana baraha bulshada qaybahooda kala duwan. ku mahadsanidin daawashada muuqaaladan.